السلام عليكم أصحاب قيمة قدرين تلاه وكحرن channel كان ميدو قنولشة سود وهذا مانتو وماني كلو عصب وحين يدين ودنا فيديو كلو عصبة وchallenge هسه هتقرب كي وحفريو وبح وبرامج كان عن كودي دونا هدو بيد marka u horeysa videoga idin soo gaaro waxaan idin ka codsanaynaa inaad noo share gareysaan comment-kiina waa dhiirigelinteena like hay naga iloobina subscribe sidoo kale maanta waxaan idin wadnaa challenge ku saabsan laba daran mid dooro hase haata waa laba shay oo midba midka kale uu ka daran yahay ayaan aniga wax isku soo bandhigi doonaa halkaas ayaad inaga daawan doontaan marka hal xaba ayaa laga rabaa inaad dooratid midba midka kale waa ka daran yahay laakiin mid u baa laga rabaa inaad dooratid waa laba dar mid dooro oo challenge ah la yiraahdo marka challenge ka ayaa halkan inooga bilaaban doona aniga wax su'aalaha ay isweydiin doonaa midba midka kaleeta ayaan su'aalo halkan isku weydiin doonaa marka waa laba daran mid dooro wax ayaa inoo bilaabi doonto marka hore soo dhawo ayaan leenahay marka hore challenge ka ku soo dhawo wax oo noo bilaaw waxyaabaha aad haysa labada daran mid dooro أصحاب شرفت لي هالكان وحاينو كلا قرن عني نصر السؤال challenge كلا بدر من الدورة وأنا سويدين دونا قفك وحلوق بهاي إنه هل كدورت لبض الدرن إنه هل كورون أديك أكتاي الدورتي هل كسر نجلس عنيسان وأنا إدين بذكلينا إن شاء الله أنا ما بلام زاد هذا ما بلام صو بلام مركديار ويا وحواي نصروي إن لبكر دورتي والله بدر من الدورة لبضر من الدورة من عبتوية هاي oo sagaashanka daroogo cunaa daroogada kasoo shiira agtiisa la mari karin haddii indhahaadii indhiis qabtaan ku diray haya tigtikaa suray iyo mid dhaana waxba kala ogeen waxba ma kala ogo inuu hataa isqabtaan in kale shaki ugu jiro ilma labadaasay bidooro wallaahi horta waxa laba daran mid dooro loo dhahay qabtaa koole wax isdhaama ma laha cabtooyin horta cilmigiisa ayaa badanba oo handana dil hadduu kugu sii daro waa meesheed waxaaba ka sii daran midka kale oo dhaadhaanka oo meel iska fadhiyo dee aanba warkaa haynin marka haddii ay tahay laba daran mid dooro miska wada dhaafi karaa hal le qaadana ba dhaafo ma jira hal le qaadana والله وأذكت هاي كان كله يدي أصلي ما لقبيها حبة إبر اللي ما عنق لا بجري أسوي واسمع عقله والله لا ما هو ذكر إلهي بار واي عبتوي ما قال ديار دلو بيقدر أساشك لكن وحلا وحاسريك را وقف دي بنانك حلي والبا كاجا مقنان كرا أنت بدن أنت أسألك سيمبو يرتاح لكن أنا هدي أفرلاتك ساعات raadinaysid oo ku daba socdo waqtigaada inta badan ka qaatay dhaankeega reeb yar waa taas marka laba daran mid dooro ayaynu weli ku guda jirnaa qaybteeda ayaa la soo gaaray waxaa lagu yiri ubaxay laba daran mid doore saliid karkaraysa bismillah saliid karkaraysa oo de meesha ay kaaga dhibcada adadhan diirka ka tagay iyo waxaa lagu yiri dab holcay mid dooro waa isku mid inaad dhax gasho dabka iyo inaad saliid marka jirka dhammaa la yeesho waa misal meel isku mid inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun midkaan doorna ma aqaan dabkana jirka dhammaa la yeesho waa isku wada mid ada dhamaantood mid u leh dooro midka aad dhigi kartaa alla ilaahay waad ka badbaadi kartaa inkastoo labadaba laga badbaadi karin laakiin أنا داسي أفير حتى إني كل رويين إلت هاي كل ده أنا ما يكل لكن دبك وارح جله سليد نجيك نالي شو ما ده حليك سو بلاد واسكمت هذا مثل الدور هذا كيبا كورون إن دبكي وحران مجرته نكون لا إسك قادنا موجي سليد سليد إسك قاد وحران مجرت إلى وذن كمان كان سوف قاعدة مديشة يدبك سيبوك الروين سليد ولا ده هو وارنتها سليد أم بس سليد أم قاعدة ما هدي أنا وحلا هيا لك يدبك والله واحد إسرع مرة على هاي ولا إلى أذن كمان كان هبار والله سبحان سهرك في دنكاك waxaad
ii kala doorataa adiga labadan daran mid doora inaad indhoolo noqotid oo saxarada lagaa qaado oo lagu ciilciilo oo waxba aad u joodin haddii lagu dilaa iyo haddii bahal kugu soo socdo aad waxba u joodin aad iska fadhidid leh oo bani aadankana waa aragtay laba mar haddaa qof u yeerto waa lagu dhibsanaa iyo inaad cawoolo noqotid oo meel iska fadhidid kay kuron inaa indhoolo noqoto inaa indhoolo noqoto inaa cawoolo noqoto oo meel gaarin waxba qabsan karin oona kaliga aato oo qofna kula joogin iyo inaa indhoolato qof kula joogo inaa indhoolo tahay oo qof kula joogo qofka bani aadankana asagoo kula joogo haddana xoogoo lagu yar dhibsanay iyo inaa cagoolato cidna kula joogin wallaahi inuu waxaa fiicnaan lahayd inaad ka reebto midda indhoolaha inuu qof kula joogo inaad ka reebtaa fiicnaan lahayd inuusan qof kula joogin inaad dhahdaa wanaagsanaan lahayd haddaasi ay tahay labadoo maya qof waa kula joogaa laakiin qof oo 24/7 ku heegan ma ahan oo cilcila ku yar jiro xoogo waan indhoolaa indhoolaana tameela fadhiya tan cuuriyaana tahay tan lugaha ka go'an tahay indhaha waxaas kala waa qabtaa lugaha lee ka jaranta laakiin cid kula joogta mana kaliga cadow madow wallaahi haddaan si u fiiriyo indhoolkan qaadan lahaa maxaa yeelay cagoolo meel iska fadhiyo cidna aanan la joogin haddii ay colaad soo wajahda ama dhibaato kale soo wajahdan ordi karin isna cid kale garab aan keeli karin taas waa dhibkeed marka indhoolaha iska qaadan lahaaba lay dhibsado marba haddii aan ordi kara haddii colaad ama wax ay soo wajahaan aan ordi kara indhoolahan qaadan lahaa ilaahay ordi waxa u jeedmo walaa geed iyo dirbi wax ka horeeya may dee orod meesha ku gaartid geed buu ku dhacdaa iyo wax ku dhac meeqee indhoolo haddaba keligood jid iska socdo marka indhoolahan qaadan lahaa su-aasha waa dhankeyda hadda artaan ee ubax su-aasha labaad uun ku weydiinayo laba daran mid dooro waxaa waaye anigu nasra ahaan oo saaxiibta oo maanta cid kaaga dhow aysan jirin ninkayga iyo weliba walaasha hooyada iyo aabaha macaan ku dhaleen ninkeeda mid dooro wallahi bilaahi xoogo xanuun waa yar xanuun tahay laakiin saaxiibada xoogo waa yar kala maarmi kartiin at least laakiin walaashay macaan igu hooyo igu aabo hal calool aan kasoo wada baxan ninkeeda inaan qaad sharciga xitaa ma ogolo sharciga ma ogola laakiin kuba sameeyaa jira sharciga xitaa ma ogolo marka bedelka aan walaashay macaan ninkeeda aan qaadan lahaa abay ninkaadaan qaadan karaa saaxiib aamin mangashooryaa loo sheegay marka waa inaa iska kaa ilaaliyo balaayo soco waa fiican ma sheegaysid isku badnaa waa dhankaadii su-aasha saddexaad su-aashaan dhankeyga waaye waana su-aasha saddexaad saaxiibkaa nasro jaceyl xad dhaaf idinka dhexeeya muddo badan isku sabrayseen xiriirkiina waqti badan waqti dheer usoo socday saaxiibka faamiligiisa waxay dhaheen waxaa lagu daraa gabar anaga kuu keenay qoftaan aada sheekeysan jirteen gabood buu waxay dhamaalay xir stoorigeed saaxiibkii ayaa lagu dhahay gabaraan kuu keenayna haa way dhacdaaye gabadhuu guursaday markuu gabadhu asaga laakiin saa ada u jecesha si ka darno kuu jecel laakiin waalidkiis uu hadalkooda doomari waaya oo naag guursaday inuu ku imaado uu ku dhahaa uu nasrooy waxaan kaa dhiginaa xaaska labaad nin aad weliga arkin aadna garanaynin jeceyl iyo waxba isku qaban un qoor isku qabad eed aada guursat labadaaskeed dooran leed okay su-aashan waa basiid jawaabteeda basiid meel dheer ma laga raadinayo marka waxaad tiri saaxiibka oo adigo aada u jeceshahay iyo asagana aada uu ku jecel yahay waalidkiisa waxay ku qasbeen in naaka lagu daro asagana wuxuu ku yiri xaaska labada kaa dhigta xaaska labada guursan aan noqon lahaa su-aashan waxa u keen xaaska labaad inaan necabta la ogaay maya meesha waxaa ku jirto daboodi allaaya waalida ku jirta hadduu asaga ma jecel yahay inuu asagu jeclayna kugu daro waa ku jecel asaga anigana aan jeclahay dee waxaa laga yaabaa midaas koowaadoo shali meesha maad inay ka baxda oo aniga soo haro ma aragtay marka tii labaad lay noqon karaa meel looguma tagay qof jecel diyaaro waaga ku ogaa adoo midda labaad necab ku ogaa may si waa u necbahay laakiin haddii taa ay noqoto midaasoo dooran lahaa bedelkii aan qaadan lahaa qof qoor sagaar inta liisoo qabto guri laga geliyo dee farxada aanan ku haysanin macquul maahan haye waa dhankeyga maano
su-aashan laba daran mid dooro waxaad kala doorataa nin taajir oo lacagta siduu doono ku sinay laafi lacag nin walba ah marka laakiin ku dilay hada la hameysaa waqtina aadan ku siinaynin misna aan ku helin wax waqti ahba aada u taajir u yahay lacagta waxaad jeceshahay oo dhan uu ku sinaa iyo mid faqiir oo aad adigu u jeceshahay laakiin asaga aan ku raynba adiga jecel wayno faqiir waana kibir badanaa weligeedba nasr faqiir kibray sug ade weligeed waqtiyaa laysiinin yaana ma jeclabaa dhaha waa lagu dilaa dilowga maalin mali dila maalin mase saban kari ada dilla kugu jir abay taajirkaas like shoppingkayga iyo wixii lacagtayga lacagta waxaad sidii wuxuu ku sinaya aragay waa qabay obvious hal idil mala badhimanay badarka faqiir kibir badan oo jeclaan waxa ku falac geena soo soco taajirkan qaatay oo maalin ay jukeyna maalin lacag siina tan afaraad waxaa waaye Nasr Maxamuud in lagu dhaha adoo dhar la-aan ee magaalada orod xasbunallah waxaa soo wadweyne badana magaalada orod qof walba sawira ka qaata Nasr farxun badanay ilaa xaltadan intu ku garin ala Nasr ay socotay oo ordaysa Allah Nasro waxa bawadanin halka ordaysa in lagu dhaha صح in telefonka bay xirba in lagu toogto waa lagu toogana lagu dhaha inaad magaalo la-aan orod dhararara soo wareegato magaalo lama Nasra inta maraysa soo maalin dhallaan socda weliga ma wax kali may wax macquul ah sheeg weliga qof iska orday ma jirto moogtaa duusan waa leen wixii waa shuruud wax lagu wixii waa la tibo ordaysa ee qof oo fiyo dharlaan orday wallahi ma qeyd la-aan socoto waalan kuwaas ku dhex darsan karaa ba ordilal soo la qay waxa soo dhiga Facebook dib ma laha imse waa la dawo meel ordays ani taas leen qaadan karaa bo ana waalan aakhira waa idoo la qabiyo loo tagay diritaana nuucana diyaar ay gabagabeyn sheekada waa dhankayga maano waxaa ii sheegtaa laba dar mid dooro midda waa kugu adag tahay laakiin mid ubaad ka baxsan doontaa nin laba xaas qaba iyo mid saddex xaas qaba inaad xaaska saddexaad noqoto iyo inaad midda afraad noqoto mid dooro warkiisoo gabagabay abay afraad noqona aligu soo xira naag iga dambeys oo kama seeraan ana saqaala moogtay midda koowaadna saaxiib la noqo midda koowaad ani idan xiriir dhab saaxiibkiin anaa ugu dambeeya anaa ugu yar naaga anaa ugu dhalin yaraysan moogtay labada gacmood iyo labada lugood isku geena afraad oo ku qanacsan haya middaas qaad hay su-aasha hadda waa dhankayga haddii aan soo qabto midda dhankayga waxaa sheegta uwax walaasha macaan hooyada aabaha ay ku dhaleen iyo ninkaaga ama xaajigaaga mid dooro horto hadda waaba nin mabahaye u fikira baqalad lacala adoo ku qabaan ka hadlaya ani walaashii macaan anina iyo xaajigaaga ninkaaga ku dhahay wax ku qabaan ka hadlaya inuu ku qabaan ka hadlaya dartaa dee ama inaa banaan bismillahi raxmaan raxiim walaashii nin waa hela aba walaasha laakiin walaashii ma helay haya walaal dabo ii dhalana ma jirto nin magaalo buux walaashii aan doorta waxaa kala doorta Nasr aniga aneeto oo saaxiibada waa isla soo jabnay isla soo kufnay ina iga tagi leero aywad ee saaxiibka isla socotiin isguulisteen maaya isla socotiin xiriirin ka dhaxay iyo ani adoo isla soo jabnay iyo asoo mar dhow maragtid la dooro haloyle ilmu socdi oo waxa kala kulmi wax kala weyn nimanka ayaantaan la isku maaleenaye ay waxa saxay ka tahay inaan leedarka marka nina shil bartorta ka doorna iska dhaaf mid aan isqabno wallahi inaan ka doortay second su'aashaas waa saas ugu jawaabay ma sha Allah Nasroy su'aashan waa su'aash ugu dambeysay oo program ku soo xireenay inaad Nasr Maxamuud weliga muraayad isku fiiray
wax walba oo leeda wasaq walba oo leeda jirkaada wax walba saar wajigaada wax walba ka halaysan inaa muraayad isku fiirinin inta tin oo jirkaaga ku taalo kugu baxaan mid dooro waa wax kala daran marka hore marka xigto tin ma wala iska xiro waxay tinta ma wala iska xiro qofka tinteedu macna ma xiri karabe ha tan timo badan jiro nimo اللي عربارة جت أيوة إنه يستر iyo ina muraayad isku fiirin ina muraad ku fiirid wallahi ina muraad ku fiirin ka wada isku fiirinin ha waxa qaadan karaa le inaan muraayad isku fiirin laakiin afaaraha kale iska hagaajisay allah ya kala tinigu baa